بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب wanaagsan seetiina saxaabe xaaladiina caafimaadka ma sha Allah soo dhawow waxaan rabnaa insha Allah marro barnaamijyo arrimaha gabdhaha iyo caruurta ku saabsan inaad bilowna hadii Ilaahay idmo asxaabteedu waxaan idin sheegayaa inay ila soo wadaagtaan waxyaabaha ay jeceshihiin inaan ka soo hadlo qaasatan caruurta iyo gabdhaha sidoo kale barnaamijka waxbarashada gabdhaha ayaan dhiirigelinaynaa maxaa yeelay gabadhu waa udubdhaxaadka qoyska gabdhuhu waa laf dhabarta bulshada Soomaalidana waxay tiraahdaa gabar wax baratay waa bulsho wax baratay waxaan leeyahay gabar kasta oo Soomaaliyeed buugaaga boorsadaada ha kugu jiro garabka buugaaga boorsadaada ha kugu jiro gabar kasta oo wax baratay waa bogaadinaya gabar kasta oo waxbarashada ku jirtana waxaan leeyahay wax yar ayaa kaaga dhiman wadadii guusha hooyo hore u soco gabar kasta oo rajeynaysa in ay waxbarashada si dhameystirato waxaan leeyahay hambaliyo waxaad haysaa wadadii ugu wanaagsaneed iyo go'aankii ugu fiicnaa ee noloshaada ogow haddii aad wax baratay waxaad u baratay ubadkaaga aayahaaga mustaqbalkaaga bulshadaada iyo ummadda oo dhan waxaa tahay laf dhabarta bulshada qofka bini aadanka hadduu lafta dhabarka ka jabo waxba ma qabsan karo ma fariisan karo socod iska daaye gabadhuna marka ay waxbarashadeeda ka tagto ogsoonow dhabarka ayaad iska jibisay gabar kasto waxaan ku waaninayaa oon ka codsanayaa in aad waxbarashadaada hore u sii wadatid barnaamijyada soo socda insha Allah waxaan uga hadli doonaa waxbarashada gabdhaha iyo sida ay muhiim u tahay in ay gabadhu wax barato waan bogaadinayaa waan ku farxayaa gabar kasta oo wax barato waxaa leeyahay hambaliyo hooyo hambaliyo abaayo hambaliyo habaryar hambaliyo eedo maxaa jeceshihiin gabdho mawduucee ayaad jeceshihiin ee gabdhaha ku saabsan in aan idinkala soo hadlo insha Allah adinkana waxaan jeclahay anigana in aad fikirkiina qurquruxda badan oo shaxshaxda ah ay safartaan fikirkiina sugaaya hooyo qaybta commentida ku balansanna hadii Ilaahay idmo ogsoono qof kasta oo gabar dhiirigeliyo waxaad qabatay shaqada mid ugu quruxda badan leh ma sha Allah mid ugu quruxda badan leh gabdhaheena Soomaaliyeed way sharfayeen way amaanan yihiin waxaa Allah subhanahu wa ta'ala ka baryayaa meel walba ay joogaan in gabdhaha Ilaahay noo xafido waxaa Allah subhanahu wa ta'ala u weydiinayaa kuwa raba sharaftooda iyo cisigooda iyo dadnimadooda inay lumiyaan in Ilaahay uu ka qabto mudooyinkan waxaa aad u soo badanaya gabdhaha la dhibaateenayo ma wanaagsano walaal ma qurux badno gabadhu waa laga maarmaanka nolosha Ilaahay ayaa cizi iyo sharaf siiyay gabdhaha Ilaahay ayaa karaameeyay meeqa dumar oo wanaagsan ayaa ku jirta dumarka ayaa ku jiri doonta hadii Ilaahay idmo waxaan leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed huwiya hogsiimada geesinimada huwiya gabdhihiina qaata xijaabka geesinimada ah micnaha maxay tahay mataqaana xijaabka geesinimada ma aan mara inta tolati inaad gashatid waa inaad go'aanka waxbarashadaada aad qaadataa hooyo kasta oo Soomaaliyeed waxaan ugu hambaleynayaa ee gabadheeda la jeclaatay in ay wax barato waxaad la jeclaatay mustaqbalkii gabadhaada insha Allah gabar kasta waxaan u rajeynayaa guul insha Allah gabar wax baratay waa bulsho wax baratay maxay Soomaalidu dhaheen fiiri wiil wax bartay waa bulsho wax bartay lama dhihin gabar wax baratay waa bulsho wax baratay bulsho dhan ayaad la mid tahay hal gabar oo wax baratay maxaad u maleynaysaa kumanaan kun oo gabdho ah oo aqoon-yahaniin ah oo mutacalimiin ah oo jaamiciyaal oo dhaqaatiir ah oo murabbiin ah oo macallimiin ah oo xirfadlayaal ah oo maanta wax barteen maxaad u maleynaysaa ma sha Allah taasi waa mid aan la qiyaasi karin gabdhaha dhaqaatiirta gabdhaha injineeriinta gabdhaha macallimiinta gabdhaha murabbiyaadka kuwa diinta bartay kuwa kitaabada bartay kuwa aqoon diini iyo maadi labadaba bartay gabdhaha xirfadaha bartay
maasha allah gabar kasto waad sharfan tahay wax kaa haleysan ma jiro waad qurux badan tahay cidna kaama qurux badno geesiyad ayaa tahay cidna kaama geesisano maxaa tahay geesiyad ayaa tahay cidna kaama geesisano inta buugga iyo qalinka ay boorsadaada ku jiraan maskaxdaaduna ay diyaarinayso inaad wax aqriso wax qorto waxaa tahay geesiyad waxaad qaadatay go-aanka ugu wanaagsan ee noloshaada insha allah ubadkaagana waxaad u noqon doontaa murabbiyad macalimad titooreeso wax kasta ayaad u noqon doontaa insha allah soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada janalkana barta cas madoobeeya subscribe share insha allah galab wanaagsan